waxaa lagu tilmaamaa dadka go'aan caalamka intiisa kale aanan ogolayn in cidi soo dhex gasho, qofkii jasiiradda u soo dhowaadana uu naftiisa ku waayayo. Waxaynu ka hadlaynaa jasiirad ka mid ah jasiiradaha lagu tiriyo kuwa ugu khatarta badan adduunka. Jasiiradda Sentinel waa jasiirad dhacda dalka Hindiya. Waxay ku taallaa gacanka Bengal ee Badweynta Hindiya. Waxay 50 kiilomitir ka xigtaa galbeedka gobolka Port Blair ee dalka Hindiya. Waxay 70,000 oo sano ka midabto koornayd dadka sida ay sheegeen wargeysyadu. Muuqaalkeena maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa ninkii jasiiradda tegay iyo dhimashadu la kulmay, halka ay ku taal iyo dadkeedu cad ahaan inta ay leeyihiin, nin isna sidoo kale tegay iyo siduu uga soo badbaaday. Halkani waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, daawadayaal. Wuu tegay mana uusan soo noqon. Waxaa ciwaan looga dhigay ninkii jasiiradda galay. John Shaw waa 20 jir. Waa nin ka mid ah kuwa faafiyay diinta Kiristaanka. Wuxuu galay jasiiradda isagoo ogsoon halista ay leedahay. Hadafka uu tegayna waxa uu ahaa inuu gaarsiiyo diinta Masiixiyadda. Wuxuu qaatay buug Bible ah oo aan biyuhu karin iyo hadiyado yaryar. Shaw wuxuu lacag badan ku bixiyay niman kalluumaysato ah si ay u geeyaan jasiiradda. Way ka diideen. Waxay ogaayeen niman kalluumaysato hore oo u dhowaaday inay naftooda ku waayeen. Cadays badan ka bacdi waxaa xal lagu gaaray inay jasiiradda meel u dhow dhigaan, kadib ay halkaa kaga tagaan si uu safarkiisa u sii wato. Istiraatiijiyaddii uu doonayay inuu ku galo waxay ahayd inuu siiyo hadiyado si uu u muujiyo niyad wanaaggiisa una cabiro inaanu dhib wadin, kadib si uu Kiristaanka ama dacwadiisa u sii gaarsiiyo. Laakiin uu ku khaldanaa fikirkaas. Soo dhaweyntu rabayna lama u kulmin. Sida uu tilmaamay laftarkiisu message uu qoray 2 maalin ka hor, waxa uu la kulmay tacaamul qallafsan ilaa uu mid ka mid ah dadkii ku soo tuuray waran sumaysan, laakiin nasiib wanaag kuma dhicin. Waxaa la sheegay inuu 2 maalmood oo kale ku laabtay, in ka badan 1 jeerna uu ka soo noqday isagoo baarayay meelo cusub oo laga soo geli karo jasiiradda, laakiin baaritaankiisa waxba kuma faa'iidin. Kadib waxa uu go'aansaday ama uu goostay inuu habeenkii ugu dambeeyay u hoydo, waana tii keentay dilkiisa. Waxaa la sheegaa dadkeedu inay tir ahaan leeyihiin 150 qof, jasiiradduna bad ahaan ama balcaan ay dhan tahay 72 kiilomitir oo iskuweer ah. Waxay isku dayday xukuumadda Indiya dhowr jeer inay xiriir la samayso, laakiin xiriirkaasi wax natiijo ma keenin. Waayo waa dadka go'aan caalamka intiisa kale waxa inagu ku tilmaamnaa reer magaalnimo, iyagu waxba kalama socdaan, sida leerarka, guryaha qurxoon iyo dharkaba. Waxaa xusuus mudan mar ay isku day samaysay dowladda Indiya kadib tsunami ka dhacay dalkeeda inay u dirtay helikabtar si ay u soo eegto xaaladooda, laakiin waxaa ku soo yaacay dadkii deegaanka oo waramo wata, waxayna ku qasbanaatay inay ka fogaato. Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa daawadayaal muuqaalkeena maanta. Muuqaalkeena kan xiga waxaynu kaga hadlaynaa ninkii tegay jasiiraddaas iyo siduu uga soo badbaaday. Haddii uu ku qanciyay muuqaalku, ha ilaawin inaad like saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan madashan. Mahadsanidin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.